ra'iisul wasaare injineer maxamed xuseen rooble oo ahaa mas-uulka ugu sarreeya doorashada dalka fulinteeda waxa uu hadda ku jiraa maalmo shaqadiisa hoggaamineed mugdi gelin doona ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa wakhtigii baarlamaanka federaalku codka kalsoonida siiyey waxaa loo diray laba shaqo oo ahayd inay dalka ka qabtaan doorasho xasiloon lagu wada qanacsan yahay iyo in shaqada dowladnimo la sii wado barnaamijkani wuxuu qeexayaa arrimaha hortabinta u leh xukuumadda sida dardargelinta doorashooyinka sanad kadib oo uu xafiiska jooga ra'iisul wasaare rooble wuxuu u muuqdaa inuu la soo baxay damac horay ugu jiray oo ahaa inaan doorasho la qaban si kursigoo loogu sii dheeraysto muddada joogitaanka xafiisyada hay-adaha dowladda dhexdhexaadnimo uu ka muujiyey howlihii kala guurka ayaa loogu cimaamaday inuu shaqada doorashada xafiiskiisu maamulo balse shaqo kasta oo socotay ayaa istaagtay kolkii uu ra'iisul wasaare rooble ku dhaqaaqay tallaabooyin liddi ku ah mashruuca doorashada oo hore galkiisa u haystay 24 saac ee ugu dambeeyana waxaa soo baxa in doorashada dalka halkaas aysan dhaafi karin ilaa ay madaxda Soomaalidu isfaham ka gaadho geedi socodka doorashooyinka mar kale haddaba waxaynu eegaynaa dhaawac siyaasadeedyada uu isgaarsiiyey ra'iisul wasaare rooble iyo marxaladaha waaweyn ee dul taagan kow hoggaaminta rooble waraaqaha xafiiskiisa ka soo baxayay maalmihii la soo dhaafay waxaa laga dhex arkayay inaan doorasho loo socon in rooble soo saaro amar duldhigaya wasiiradiisa inaysan shaqayn karin hawl maalmeed la fulin karin ayaa ah sababta beesha caalamka siyaasiyiinta xildoonka ah iyo dowlad goboleedyada qaarkood ay ka baqsadeen howlfulinta arrimaha doorashooyinka dhawaaqa ugu dheer waxaa soo diray wakiilada caalamiga ah kolkii ay joojiyeen lacag dhan 7,200,000 oo loogu taageerayay guddiga doorashooyinka waana boog ku dhacday hoggaaminta ra'iisul wasaare rooble 2 dhexdhexaadnimada injineerka tan iyo intii khilaafku soo kala dhex galay rooble iyo farmaajo waxaa si cad u soo taraya in ra'iisul wasaaruhu dhexdhexaadnimo uusa ka gudbay isla markaana uu ku biiray safka mucaaradka welibana mucaaradka uu sii kala xushay kuna dhammaaday 2 musharax oo xilka madaxweynenimada raba musharaxiinta kalena geeska ayuu geliyey waa tallaabo kale oo rooble ka wareejin doonta hirgelinta doorashada kooxda uu ku lamaan yahay rooble waxay aad ugu dhiirigelinayaan inuu mar kasta qas iyo qalalaasal galo si doorashada ay isugu diyaariyaan dibna ay u dhacdo 3 dowlad goboleedyada ra'iisul wasaaruhu waxa uu xilka yimid iyadoo dowlad goboleedyadu 2 safuf kala fadhiyaan balse markii laga laabtay muddo kororsigii lana dhaqaajiyay tareenka doorashada dowlad goboleedyada ayaa noqday hal koox oo wada shaqaynaya dalkana u jiheeyay doorasho ilaa habraacii ugu dambeeyay ee bishiina weydaaratay la soo saaray balse mar kale markii rooble hoggaamintiisu liicday dhexdhexaadnimana uu noqon waayay musharaxiinta xilka madaxweynenimo waxaa soo baxaya durba in labadii garab ay mar kale u kala fariisteen ayna kala hoggaamin doonaan qoorqoor iyo siciidani 4 ra'iisul wasaare rooble iyo cadaalad u helista ikraan sargaalad ikraan tahliil waa dulmane u baahan cadaalad wax kasta oo dabraya in kiiskeedu cadaalad ku dhammaado ayaa ah cadaalad darro kale oo ku dhacda gabadha la weysan yahay balse tallaabooyinka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu qaadayo waqtigan waxay u muuqdaan in kiiska ikraan uu ku geedo goosanayo waxaanu aad uga howlan yahay inuu ikraan u isticmaalo mashruucu jeebka ku haysto oo siyaasadeed ayna gadaal ka taagan yihiin kooxda cusub ee hadda shirkada uu leeyahay imikana si weyn uga dhex muuqda dhammaan arrimaha loolankiisa doorashada toddobaadyada soo socda waxaa la qariibsan karin in la maqlo dhawaaqyo ah in ra'iisul wasaaruhu uusan dhex ahayn doorashada laga wareejiyo dhinaca kalena gaabiska xoogga badan ee socda iyo walaaca doorashaduba waa arrimo waaweyn oo hoggaaminta ra'iisul wasaaraha jaan goyn doona toddobaadka nugu soo aadan sida uu hadba u maareeyo